qof walba waxa uu dareemaa dhibaatada marka ay haleesho ama ay la diristo ruux kale oo qoyskiisa ka mid ah. Liibaan Maxamed Cabdi waa wiil yar oo 12 jir ah waxaana uu ku xanuunsanayaa magaalada Garowe. Dhaqaatiir kala duwan oo loo geeyay ayaa waxay reerkiisa u sheegeen in dalka gudihiisa aan xaaladiisa caafimaad lagu dabiibi karin. Haddaba qoyska uu Liibaan ka soo jeedo oo ah dad danyar ah ayaan awoodin inay dibadda u geeyaan daryeel caafimaad. Caasho Maxamuud Axmed oo ah hooyada dhashay wiilkan yar ayaan kala sheekaystay mar aan ku booqday hoyga ay ka degan tahay magaalada Garowe xaaladda Liibaan yare iyo xanuunkan siyaabaha uu ugu dhacay. waxa la yiraahdaa Liibaan Maxamed Cabdi wiilkan wuxuu ka dhacay meel derbiya anigu markii maan maqlay inuu iska xamaalataanahay caruurta ii sheegtay habeenkii markaan isagoo si u balaq qabaanimi wiilkii haduu muddo adigu waxaan isleeyahay waa iska dhul iyo ciyaal waa iska dhacayo tabar saasan maan hayn wiilkii markuu adigu ilaa 2 toddobaad joogay wuxuu bilaabay inuu dhaxo inuu adigu Maxamed Jaamac u qaadnay muddo adigu sanad dhow baan Maxamed Jaamac ku wadnay marba intaan wax isku urursan ama deyn qaadanay u kaxaynaynay adigu saan ugu wadnay Maxamed Jaamac ninkan jug baa ku dhacday daawo noo qora daawadii baan iska siinay 2 sano meelahaas ay ku gaadhay intaan daawada ku wadnay wuuna dhaqdhaqaaqayay adigu sanadkii dambana koomo gala isbitaalka Garowe aan iska dhignay waxa wadana uma ahayn kuwi kale way iska dhibaatoodeen anaga waa ku dhibaatoonay adigu isbitaalka hadaan iska dhignay mar dambaano adigu xogaa dadka iyo dadka darisiyada iyo meel yar oo boos ay isugu ururino Itoobiya qaad Itoobiya hadaan geeyana waxa la qoray daawo 5 sano daawada 5 sano baa markii uu dareen yeesho dareenkiisa damqashadu soo noqdo waa qaliin adigu 5 sano hadeeray joogtaa daawadiina waa ku wadnay wax itaala iyo wax awooda iyo wax kale anigu hadaan Itoobiya u celiyo meel kale ugu qaadana ma heli karo. Hooyo Caasho oo inta aan la fadhiyay ishayn weyday ayaa iyada oo ilmeynaysa ka dalbatay dadka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan inay alla dartiis u caawiyaan uguna gargaaraan islaamnimo iyo dhiig Soomaaliyeed. muslimka anigu sida bariiska uu doon baan gartaa ma wada qaybsami karo markii uu xoogaa indhaha soo kala qaado waan shaqo taga wixii lagu dhuun lahaa baan doona balse inaan hawlo iyo meelo galgalo iyo hay'ado iyo dad wax la qor midna ma aqaani isaga waa fadhiista hadhowna meeshii aanu xamaalanteey baan aadaa wixii musliin dhiibo yar yar oo markaan wax ku siisiyana way iska ag fadhiista aan helo inaan iyaga kuwa kale ayaama ku hayo adigu 2 sano 3 sano waan suuqa ka maqnayn kuwa kale iskooladii waa ka hadheen maxay tahay waa wada habsaameen markii dambe oo aan sidaa noqday baan iska tagay oo suuqi ku noqday iyaga iskooladii wixii aan geyn karo geeyayo waxaan marka ka codsanayaa walaalahayga islaameed iyo ummadda islaamka iyo ummadda walaalaha oo diirku ka naxayo cunuga yarka qof lagama samro waxaan ka codsanayaa inaan wax bal mar aan ku geeyo dhakhtar qaliina oo dibadda in wiilka la igu kaalmeeyo intaasaan codsanaya ka waran cuntada oo kala ma cunaa waxba ma cuno hada siliinka siliinka san ku siiya 3 jeer baa wax lagu siiya silingahan kaliya wax ku cabaa silingaha bas wax ku cabaa 5 sano 6 sano iska 6 sano 6 sano silingahaas aniga iyo gabadh yar baan naqaana iyo aabihiis silingahaas aan soo ku siinaa oo Soomaaliyeed dalka iyo dibadiisaba ka daawan doona muuqaalkaaga daawan maxaa marka dadkaas aad ka codsanaysaa in case xataa hadii qof walaalnimo iyo islaamnimo kugu caawinayo oo dabcan muuqaalkan daawado taleefanadaada laga soo xiriirayo waxaan ka codsanayaa in horta waxtar Ilaahay baale ummadaasna waan uga baahanahay waxaan uga baahanahay bal mar wiilkaas in wax igu gargaaro ama Hindiya ku geeyo ama Malaysia ku geeyo xataa waxaan ku hayo mahay xataa dabcan wixii aan guriga ku hayn la ku rogrogi hadii aan ugu ag fadhiyo lahaa xataa saamu ahaadeen moogta xataa noloshii aan ku hayn lahaa mahay oo maalin ugu fadhiisan lahaa wixii aan xataa maalin ugu fadhiisan lahaa xataa ma laakiin waxaan ka codsanayaa in walaalahayga islaameed iyo ummadda islaamka oo ay maqlaysaa inay wiilka wixii aan dalka aan dibadiisa ugu qaado aniga dhib badan baa soo martay murug badan baa soo martay inta in ka badan ma hadli karo waan dhibaatooday kuwa kale waa ay joogaan marka inaan wiilkaas
dalka dibadiisa wax laygaga qabto waxba maamaha ooyin waxa weeye waa ilaahay waxa uu keenay subxaanahu wa tacaala ilaahay baa keenay ilaahay baana ka qaaday isagoo ordaya duu ku dhalan lahaa damcad murug intaa leeg maxambarsanaade taleefankaygu 62 16 32 mar kale ku celi 62 16 32 74 eberhal 43 كان والدك أبي سالم إبر هلا فرتني صدق وحنا در لبد دول كم ركسنة وحلي رجوا لي هي 5 سنة كبعدي إلا قلال ربا 5 سنة وحي لقو قلي لها هديري تاجنتي ما هيستو liibaan ayaa muddo 5 sano ah ku dhibaataysan hooygan aad aragtaan mana jirto ilaa hadda cid soo booqatay ama og xaaladda uu ku nool yahay laakiin si walba oo qoyskiisa loogu sheego in wiilkooda caafimaadkiisa aan waxba laga qaban karin haddana ayagu waxay aaminsan yihiin in mar uu caafimaadi doono maxamuud cabdinaasir maxamed TV-ga dowladda Jubbaland magaalada Garowe